halkani waa bartamaha magaalada Muqdisho sidaad u jeedaanba waxa ka socota hawl ay hogaaminayaan dhalinyaro hawshan oo loo bixiyay wax qabad muuqda ayna fulinayaan dhalinyarada degmada Shangani oo ah dhalinyaro isxilqaantay waxa garabkooda taagnaa gudoomiyaha degmada Shangani oo halkan ka hadlay hadaladeedina waxa kamid ahaa waxaan ka soo bilaabnay kiiloomitir 0 ilaa meesha ay ku egtahay degmada Shangani insha Allah inaan gaarsiinaan jecelnahay waana wada dhameystireenaa waxaan dhahaa degmooyinka gobolka Banaadir diriskayga waxaan rabaa inay igu daydaan dhalinyarada ee dhiirigelinta ee niyadda ay leeyihiin ay ula qaadaan dhalinyarada waa tiirka ay ku dhisan tahay bulshada dhalinyaro lama heli karo dhalinyaradu waa in shaqo abuurka degmada gobolka Banaadir uu bilaabay in la sii jaan qaado oo lagu shaqeeyo dhalinyaradu waxay diyaar u yihiin dalkooda inay dhistaan dhalinyarada waxaan ku guwaabinaa inay iska daayaan tahriibka inay iska daayaan waxyaalaha dhibaatada ku ah dalka inay ku biiraan dalkooda siday ugu dhisan lahaayeen waxaan ku dhiirigelinaa dhalinyarada har iyo haween inaan u taaganahay garabkooda inaan nahay mas'uuliyiinta gobolka Banaadir u horeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed oo markasta u taagan dhalinyarada dhiirigelintooda iyo wanaagoodi iyo wax qabadkoodi intaba annagana diyaar u ah inaan dhalinyarada niyadooda siday jeceshaan ula jaan qaadno sidoo kale waxa asna meesha ka goobjoog ka ahaa oo dhalinyarada hirgelinaya hormuud oo ahaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir hadaladiisina waxa kamid ahaa maadaama oo dalkaani uu 75% dhalinyaro yahay maanta waxaan aaminsanahay dhalinyarada haddii xoogooda laga faa'iideysto dalkan oo dhan amnigiisa iyo nabadiisa iyo nadaafadiisa iyo bilicdiisa waxaan aaminsanahay inay one day hal maalin inay ku soo noqon karto sababta oo dhahay waxay tahay shalay galab bacda العصر ayaa kiiloomitir 0 ka soo bilaabnay qurxintan aad u jeedaan oo laamigan marka aad marayso indhahaaga runtii ma milcsan karaan waxa dareemaysaa quruxda iyo deegaanka ka muuqdo runtii dalkan waxa rabnaa anaga gobolka Banaadir amba caasimada Muqdisho inay la jaan qaadaan caasimadaha adduunka ee ku yaal barnaamijkan waa barnaamij loogu talagalay horumarintoona qayb ka yahay amniga qayb ka yahay marka dareensiiso qof dhalinyaro ah inuu inta soo istaago oo dalkiisa wax u qabto laga kale waxa iyaguna hawshan aad ugu riyaaqay qaar kamid ah xildhibaanada qaranka maadaama dhinacna ay dhalinyaro ka yihiin dhinacna ay yihiin xildhibaanada qaranka ayaa waxa waqtigiisa qaaliga halkan ku soo booqday burush ka qaatay shaqada wax ka qabtay xildhibaan Carabow aladadiisina waxa kamid ahaa hadii dhalinyarada loo isticmaali jiray waxyaabo qaldan marin habaabin muqaadaraad waxyaabo kale fool xun maanta waxay dhalinyarada yireen maya waxaan qabanaynaa bilicda caasimadii waxaan ka hortagaynaa nabadiidka waxaan xoojinaynaa nabadgelyada waxaad la socotaan dawladda hadda jirto fursadda ugu badan dadka haysta waa dhalinyaro madaxda sare waa dhalinyaro gobolka waa gudoomiyaha gobolka waa dhalinyaro xildhibaanada 40% in ka badan waxa lagu qiyaasaa inay dhalinyaro yihiin baarlamaanka guud ahaan annaga waxaan metelnaa anoo ku hadlaaya afka dhalinyarada maadaama aan xildhibaan u ah dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ku dhiirigelinaa meel walba ay joogaan inay ka shaqeeyaan nabadgelyada waa inay ka shaqeeyaan bilicda waxaan leeyahay hore u socda garabkiinaan taaganahay xildhibaanadana waxaan leeyahay dhamaantiinaba ku soo biira lama kala laha wadankan waa inaan annaga aan isku tashanaa maanta gabagabadii ayay dhalinyaradu waxay challenge gareeyeen ama ay ku baaqeen dhalinyarada degmooyinka kale iyagoo halqabsigoodu yahay ku dayo Shangani ku dayo Abukar Cawaale Somali Cable Muqdisho